السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا warbixinteeni labaad ee usbuuca yaa u qalma in ay keenaan qaxooti maxay tahay mas'uuliyadda laga doonayo ee saaran sidii aad ka dheehateen warbixinteeni hore dadka doonaya in ay kafaala qaadaan qof ama qoys qaxooti ah waa inay buuxiyaan shuruudaha laga doonayo shuruudaha asaasiga ah waxaan uga soo hadalnay warbixinteeni hore halkan waxaan ku faahfaahinaynaa cidda kafaala qaadka samayn karta iyo cidda loo samayn karo dhammaan kafaala qaadayaashu waa in ay buuxiyaan shuruudaha u qalmitaanka ugu yar si ay u sameeyaan koox ama group kafaala qaada dad gaar ah si aad ugu qalanto kooxdu waa in ay ka koobnaadaan ugu yaraan 5 qof kuwaas oo ah muwaadiniin Mareykan ah ama deganaansho rasmi ah haysta waa in da'doodu ka weyn tahay 18 kuna nool yihiin isku xaafad ama aynan aad u kala fogeen kooxda waxa ay noqon karaan isku qoys saaxiibo daris shaqo wadaag isku caqiido ama diin ama hal naadi ayay ka wada tirsanaan karaan waxa ugu muhiimsan in ay qaangaar yihiin shuruudahana ka soo dhalaalaan 5 qof wadar ahaantood waa inay cadeeyaan inay awood u leeyihiin buuxinta shuruudaha ugu yar ee kafaala qaadka kooxaha kafaala qaadayaasha gaarka ah waxaa loo doori karaa qofka ama qoyska qaxootiga ah ee ay keenayaan Mareykanka ama waxay kafaala qaadi karaan qof ama qoys ay hore u yaqiineen ka hor intaadan bilaabin codsiga hubi in qofka ama qoyska aad keenayso ay u qalmaan barnaamijka waa maxay mas'uuliyadda saaran kooxda kafaala qaadayaasha gaarka ah dadka kafaala qaadaya qaxootiga waxaa laga doonayaa in ay bixiyaan adeegyada kafaala qaadka 9 maalmood taas oo noqon karta mid adag tusaale ahaan waa in ay caawiyaan qaxootiga helitaanka adeegyada bulshada sida cayrta iyo barnaamijyada caafimaadka waxaa laga yaabaa in adeegyada qaar ay meel fog u aadaan waa in ay maanka ku hayaan in guryuhu ay noqon karaan kuwo qaali ah oo ay adag tahay in la helo waxay qaadan kartaa waqti dheer in qaxootigu shaqo ka helaan meesha la dejiyo taas macnaheedu waxa weeyaan inay caawiyaan qaxootiga inta uu ka gaarayo isku filnaansho rasmi ah hay-adda Welcome Corps waxa ay taakula joogta siinaysaa kafaala qaadayaasha gaarka ah waxay ka caawinaysaa sida miisaaniyadda loo qorsheeyo lacag uruurintana loo sameeyo waxyaabaha laga doonayo inay dhameystiraan marka qaxootiga imanayo iyo muddada ay soconayso kafaala qaadka dadka kafaala qaadka sameynaya ma noqon karaan kuwa isku isir diin ama isku luqad ah jawaabtu waa haa kooxaha kafaala qaadayaasha gaarka ah ee codsanaya in codsigooda lagu beego ama ay doortaan dad ay isku af isir ama diin yihiin waxaa muhiim ah in kafaala qaadayaasha ay cadeeyaan waxyaabaha ay doonayaan si hawsha loogu fudaydiyo warbixintani waxay idinka timid Somali TV of Minnesota iyo Sahan Journal